ورحمة الله وبركاته. waxaan xaggan ka salaamayaa ummadda muslimiinta dhammaantood meel kastii meel ay joogaanba. waxaan ay horta wiil Soomaaliyeed oo in badan waddanka ka maqnaa oo tahriibay. taana horta Ilaahay baa mahad kulli maanta waddankayga anoo caafimaad qabaan ka soo degay. alxamdulillaah rabbil caalamiin. mahad baa Ilaahay u sugnaatay. taana waxa ku mahadsan dawladda oo anoo caafimaad qaba igu soo celisay waddanka anoo waddamo shisheeye in badan ku dhibaataysnaa oo duruufo badan oo kala duwan ay igu soo mareen. marka walaalayaal waxaan leeyahay dhalinyarta Soomaaliyeed meel kastii meeshay joogaanba waddankiina wax idin dhaama ma jirto. anigu ilaa muddo 5 sano baan waddanka ka maqnaa. wax alli waxaan la igu sameeyay ma jirto. waxaan nin raga lagu sameeyay waanan jidhkaygu baa lagu soo xadgudbin mooyaane. laakiin waxyaalo badan oo tacadiyo kala duwan horta waa lagu sameeyay. adeerna 24 saac ka hor markaan ka soo degay wadamada shisheeye waxa la dhahay muhaajir musaafir waxyaalo noocaas maadaama hadda waddankii ku soo noqday muhaajirna meehi musaafirna meehi muwaadin baan waddankiisa ku soo noqday. marka alxamdulillaah rabbil caalamiin. meeshan waxa uu mahadcelinaa dawladdeena oo juhdi iyo dadaal ku bixisay inay dib noogu soo celiso waddankii. waxaan rajaynayaa dhalinyarada iga dambaysa aniga meeshaas inay isku qaldamin insha Allah. maanta sidee dareemaysaa maanta waxaad joogtaa Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay xafiiska ergeyga gaarka ah ee arrimaha qaxootiga iyo muhaajiriinta arrimaha soo galootiga iyo xuquuqda carruurta ay ku soo dhaweeyeen Maryam Yaasiin iyo tiimkeedii. sidee maanta dareemaysaa adoo gurigaaga hooyo maanta garoonka aan cabdul ka soo waa dareemi kartaa horta qof walba yani markuu gurigiisa ku soo laabto يعني wuxuu dareemayaa xurriyad wuxuu dareemayaa nafis wuxuu dareemayaa yani culeyskii oo markii waddan kale uu joogay saarnaa inuu saarneen maanta maashaan waxa raba ku sameyn karaa waa waddankeygii yani dawladdeeda ay ugu xisaabtamaysaa laakiin waddan shisheeye markaa wax ku sameeysid yani isla xisaabtan ka badan kugu imaanayo farxad ay tahay waddankii ku soo laabto inaad dhulkayga ku soo laabto inaad magaaladii ku dhashay ku soo laabto. waxaan halkan ugu mahadcelinaa dawladdeeda oo dadaal ku bixisay oo juhdi gelisay oo waqti gelisay. waxaan halkan si qaas ah ugu mahadcelinaa aniga qaasatan safiir ku fadhiyay dawladda Soomaaliya dalka Jazaa'ir kaas oo juhdi iyo dadaal ku bixiyay. magacaygu waa Maxamed Cabdi Xaabdi Farax. waxaan reer Hargeysa oo 2023 waddanka tagay oo ka taariibay عمل لاني حتى ظروفهم بناك حيسون ودكيجي أدو مقفن مرني وخرشات بدن يو حتى واحد قولته دون ده حافظيكم ما هرين ما أنت أنا قفر مرنت وأنا حتى دلكيجي هو كمار مو صلابن. الحمد لله رب العالمين مربى تنورت ما أنت دلكيجي هو يشوفنه الحمد لله إلى ما تذكره دلكيجي ما أنت اللي تشوفنه وحيله لو ما هنقو dal sheedo joogno xataa waxaan ku wuri wax walba garaacis wax walba dhibaato walba horta soo marnay oo yaar nimanka dhalinyarta la socotaa maanta sana halkaas joogtay gafuu faystay wallahi sanad buu nahaystay markaan ka soo baxnayna Libiya wala wada garanaya waxa tay dhalinyarta ka timid naga horeysay iyo kuwii naga dambeeyay wala wada garanaya xatay hore wala arkay dhibaatadeeda. waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan xaggan ka salaamayaa ummadda muslimiinta dhammaantood meel kastii meel ay joogaanba. waxaan ay horta wiil Soomaaliyeed oo in badan waddanka ka maqnaa oo tahriibay. taana horta Ilaahay baa mahad kulli maanta waddankayga anoo caafimaad qabaan ka soo degay. alxamdulillaah rabbil caalamiin. mahad baa Ilaahay u sugnaatay. taana waxa ku mahadsan dawladda oo anoo caafimaad qaba igu soo celisay waddanka anoo waddamo shisheeye in badan ku dhibaataysnaa oo duruufo badan oo kala duwan ay igu soo mareen. marka walaalayaal waxaan leeyahay dhalinyarta Soomaaliyeed meel kastii meeshay joogaanba waddankiina wax idin dhaama ma jirto. anigu ilaa muddo 5 sano baan waddanka ka maqnaa. wax alli waxaan la igu sameeyay ma jirto. waxaan nin raga lagu sameeyay waanan jidhkaygu baa lagu soo xadgudbin mooyaane. laakiin waxyaalo badan oo tacadiyo kala duwan horta waa lagu sameeyay. adeerna 24 saac ka hor markaan ka soo degay wadamada shisheeye waxa la dhahay muhaajir musaafir waxyaalo noocaas maadaama hadda waddankii ku soo noqday muhaajirna meehi musaafirna meehi muwaadin baan waddankiisa ku soo noqday.
marka alxamdulilah rabbil caalamiin meeshaan waxaan ugu mahadcelinaa dowladdeena oo juhdi iyo dadaal ku bixisay inay dib noogu soo celiso wadankii waxaan rajaynayaa dhalinyarada iga dambaysa aniga meeshaas inay isku qaldamin insha Allah waa mahadsantihiin maanta sidee dareemaysaa maanta waxaad joogtaa muqdisho waxaa ku soo dhaweeyey xafiiska ergeyga gaarka ah ee arrimaha qaxootiga iyo muhaajiriinta arrimaha soo galootiga iyo xuquuqda carruurta ay ku soo dhaweeyeen Maryam Yaasiin iyo tiimkeedii sidee maanta dareemaysaa adoo gurigaaga hooyo maanta garoonka aad cabdul ka soo waa dareemi kartaa horta qof walba yani markuu gurigiisa ku soo laabto يعني wuxuu dareemayaa xurriyad wuxuu dareemayaa nafis wuxuu dareemayaa yani culeyskii oo markii wadan kale uu joogay saarnaa inuu saarneen maanta meeshaan waxa raba ku sameyn karaa waa wadankeygii yani dawladdeeda ay ugu xisaabtamaysa laakiin wadan shisheeye markaa wax ku sameeysid yani isla xisaabtan ka badan kugu imaanayo farxad ay tahay in wadankii ku soo laabto